xubnaha beesha caalamka oo bilaabay inay farageliyaan arrimo la xiriira doorashooyinka Soomaaliya oo weli muran xoogan uu ka taagan yahay kadib markii musharaxiinta qaar u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ay ka soo horjeesteen guddiga doorashooyinka ay magacowday dowladda Soomaaliya. xubnahan ka tirsan beesha caalamka oo horkacaya wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya James Swan ayaa waxaa kulan dhinaca internetka la yeeshay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. kulankan ayaa waxaa looga hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka dalka iyagoona sidoo kale soo dhaweeyay safarkii la xiriiray doorashooyinka socda ee uu dhawaan uu ku tagay ra'iisul wasaare Roble magaalada Baydhabo isla markaana halkaasi kula kulmay madaxweynaha Koonfur Galbeed qaybna ka ah wada tashiyada joogtada ah ee lala yeelanayo hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta Soomaalida ay qaramada midoobay iyo xubnaha kamid ah beesha caalamka ee Soomaaliya ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyagoona kala hadlay doorashooyinka socda waxaana ay soo dhaweeyeen safarkiisa qorsheysna oo kula kulmay hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka uu ka bilaabay booqashadii ugu horeysay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu yiri war ka soo baxay qaramada midoobay. dhinaca kale xubnaha beesha caalamka ayaa bilaabay kulamo ay la yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada waxaana shalay Garowe tagay wafdi uu hogaaminayay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya ayagoona la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. kulankan ayaa looga hadlay dardargelinta sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah waxaana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani xubnaha beesha caalamka la wadaagay sidii loogu gudbin lahaa marxaladda lagu guda jiro iyo sidii loo heli lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoon yahay sharciyad wanaagsan u leh Soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa loogu baaqay hogaamiyaasha Soomaalida ay sii wadaan wada hadallada dhexdooda ah iyo sidii loo xoojin lahaa dareenka dhinac wanaagsan oo ay qaramada midoobay ay garwadeen ka tahay. ugu dambeyntii xubnaha beesha caalamka ayaa horay sidoo kale waxay kulamo ay ula yeesheen musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya uu shir ugu socday magaalada Muqdisho waxaana la filayaa dhawaan inay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ay uga hadlaan arrimaha doorashooyinka dalka. haddaba iyadoo la filanayo in dhawaan doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya ayaa waxaa jira khilaaf u dhaxeeya musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba doorashada socota ayaa waxaa saameyn ku yeelatay xiriirkii u dhaxeeyay dalalka Soomaaliya iyo Kenya xilli habeenkii xalay ah dowladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay in safiirka Kenya u fadhiyo Muqdisho gabi ahaanba isaga baxo dalka halka dowladda Soomaaliyana ay u yeeratay safiirkeeda u fadhiyay magaalada Nairobi Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxaana arintani ay ku soo beegmaysaa xilli xaaladda Soomaaliya ay marayso meel xasaasi ah isla markaana la rajeynayo in ay dhamaato doorashadana ay ku dhamaato si uu wada qanacsan yahay balse arintaasi ayaa waxaa walaac hoogan ka muujiyay mucaaradka u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladda lafteedu oo ku eedeysay mucaaradka inay horinayaan. dhawaan war ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu eedeeyay mucaaradka in ay dana gaar ah ay ka leeyihiin doorashada Soomaaliya halka mucaaradka ay sheegeen in haddii amarkooda loo hogaansami waayo ayagana ay qabsan karaan doorasho. taas ayaa waxaa walaac badan ay ka muujiyeen shacabka ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya. Ismaaciil Abukar Bulshaawi Kasmaal TV Muqdisho.